kooxda Arsenal ayaa 3-2 ku garaacday Liverpool ciyaartii labada kooxood isku farasaareen garoonka Emirates ee ka dhacday garoonkaasi caalamiga ee London kulamadii 10aad ee xil ciyaareedkan 2022-23 ee horyaalka Ingiriiska. Arsenal ayaa hal daqiiqo oo kaliya ku qaadatay inay hesho goolka furitaanka waxaana u dhaliyay xidiga reer Brazil ee Gabriel Martinelli, laakiin Darwin Núñez ayaa ku guuleystay inuu natiijada ciyaarta wax ka bedel ku sameeyo isagoona hoggaanka ka soo celiyay Arsenal. Daqiiqadii 34aad Liverpool ayaa neefta ka soo foqday. daqiiqadii shanaad ee dhamaadka qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa goolka Arsenal u dhaliyay Bukayo Saka, laakiin Liverpool ayaa ku guuleysatay inay soo celiso isla markaana ay natiijada ciyaarta cadaalad u samayso. waxaana daqiiqadii 53aad gool u dhaliyay xidiga reer Brazil ee Roberto Firmino oo bedel ku soo galay. kor inta aanu Saka mar kale ruuxin masraxii London uu Arsenal u dhalin goolka wadnaha jaray kulub daqiiqadii 76aad wuxuuna ahaa gool kulaad. ciyaartan oo u dhaxaysa kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa wixii ku soo aaday xilli labada kooxood ee marxalado kala duwan ay ku jireen, inkastoo waayihii hore ee horyaalka Ingiriiska farqi badan u dhaxayn jiray iyadoo labada kooxood ee masaafo badan oo dhibcaha u dhaxeeya seasonkan. guusha Arsenal ayaa waxa xaqiijisay inay dib ugu soo laabato hoggaanka horyaalka Ingiriiska kadib markii sare u kacday 24 dhibcood iyadoo hal dhibac ka sare martay kooxda kaalinta labaad ku jirtay ee Man City, halka Liverpool ay 10 dhibcood ay la fadhiso booska ugu dambeeya ee 10aad. darada Liverpool kaligeed kuma ekaad doonto. ciyaartan oo si lama filaan ay ku bilaabatay isla markaana ay heshay gool waqti hore ah ay Liverpool dhibaato weyn soo gaartay intii ay socotay ciyaartii Arsenal. bilowga qaybtii hore waxaa Jurgen Klopp tababaraha Reds qasab ku noqotay inuu laba bedel oo degdeg ah ku sameeyo shaxdiisa isagoo ciyaarta ka saaray Luis Diaz oo dhamaadka qaybtii hore dhaawacmay iyo Trent Alexander-Arnold oo nasashadii dib loogu soo celin garoonka dhaawac dartii. dhibaatada Liverpool ee dhaawacyada ayaa sii socota inta lagu jiro xil ciyaareedka 2022-23 taa oo hubaal ah inay saameyn ku yeelanayso soo laabashada kooxda oo dhan. wuxuuna Klopp saaran cadaadis joogto ah si uu isugu dayo inuu xal ku habboon u helo maqnaanshiyaha iyo dhaawacyada xidigaha ugu muhiimsan kooxda. daafaca Liverpool way u fududahay in la dhex galo iyadoo aanu jirin hoggaan dhaba oo waabin kara weerar kasta oo wajahan kadib uu sodhac ku yimid weerarka Van Dijk isla markaana uu la kulmo dhaleeceen isdaba jooga. kooxda Jurgen Klopp ayaa si guud la kulmaysa dhibaatooyin aan hore loo arag, malaha waxaa la joogaa xilligii uu tababaraha Jarmalka Maresca isaga tagi lahaa si markabka uusan u quusin. Liverpool shabaqeeda ma ilaalsan karaan, waxa u suuragali kartaa in shabaqeeda ilaalsato ilaa inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan. kaliya 3 kulan ayay kooxda Liverpool shabaqeeda ilaalsatay, ha ahaato Premier League ama UEFA Champions League. Arsenal zamankeeda ayay joogtaa. Arsenal ayaa sii wada inay soo bandhigto qaab ciyaareed heer sare ah xilli ciyaareedkan, lagama yaabo in hoggaanka ay sii hayaan in waqti ah kaliya. Gunners waxay ku fikiri karaan in ay dagaalkooda 2022-23 uu kaga dhamaado hubka meel dhexe. Arsenal ayaa ku jirta xilli ciyaareed taariikhi ah taa oo mar kale ka dhigaysa taageerayaasheeda inay dib u soo laaban karaan sharaftii iyo haybadii kooxda lagu yaqiinay. dhibicda kaliya ee madow ee xilli ciyaareedkan Arsenal qabsatay ayaa ahayd gooldaradii Manchester, laakiin ka hor iyo kadibba wax iska caabin lama kulmin. iyaga liminta lahaa kooxaha London kaliya waxa ka go'an guul ay ka gaarto horyaalka Ingiriiska wax kale anfici maayaan. Arsenal ayaa kalsooni ku qabta macalinkeeda reer Spain Mikel Arteta oo haysta koox xamili karta cadaadiska, waxayna u hanjabi karaan kooxaha kale. goolka kooxaha kale lagama celin karo iyagoo isticmaalaya labada garab ee cajiibka ee Gabriel Martinelli iyo Saka oo sidii dabeeshii oo kale kugu dhaafaya mararka qaar hirarka badda ayay kugu garaacayaan si badda gunteeda ugu soo kulumaystaan. marka laga soo tago awoodda qadka dhexe uu hogaaminayo Thomas Partey kaasoo xilli ciyaareedkan soo bandhigay qaab ciyaareed cajiiba, wuxuu soo minguuriyay heerkiisii ugu fiicnaa markii uu joogo kooxdiisii hore Atletico. dhanka daafaca Arsenal ay hogaaminayaan Ramsdale, William Saliba iyo Gabriel waa furaha badbaadada kooxda London, iyagoo awood cajiiba ku leh inay faragelin karaan weerarka kooxda kale, waana sida saxda ay daafac loogu baahan yahay. ha noqon taagane lagu hor adeegto si caqli gala ay u kabsanayaan kooxda. Arsenal xilli ciyaareedkan waxay dib u soo ceshatay sumcadeeda koox madadaalo leh oo awood u leh inay ka badiso kooxaha waaweyn ayaan arkaynaa. waxaa laga yaabaa in Gunners dib u soo ceshato booskeeda mid ka mid ah kuwa ugu sarreeyay kubadda cagta Ingiriiska, waxayna isku dayayaan inay ku guuleystaan horyaal xitaa koob aan dhahno. hogaaminta Mikel Arteta ayaa u horseedi karta inay mar kale furtaan albaabka kooxda si ay u noqdaan kooxda loogu cabsi badan yahay Yurub.